badan ayaana soo maray marka qorshayaashii ayaa waxaa ka mid ahaa in la xaqiijiyo ciidanka tayadooda iyo tiradooda iyo meelaha ay kala joogaan qeybaha ay kala joogaan oo kala ah tanisqeybyada anaga maanta aan leenahay sida ay yihiin in la ogaado waana la sameeyo wuxuu ahaa operation readiness assessment habeenta ciidanka wasiir anagoo runtii muhiim in noo taho geli doona haddana waxaan rabnaa su-aashii ahayd howlgalka hadda socda dabcan ciidanka dib u habeyntiisa waa ku tagaynaa laakiin howlgalka hadda socda muxuu uga duwan yahay howlgalladii hore aad iyo aada u mahadsan tahay horta qorshaha ayaa ka mid ahaa in howlgalladani la sameeyo waxaan filayaa qorshayaasha nooguna muhiimsan waaye kadib markii qorshooyinka hadda aan kuu sheegay la qabtay waxaa qayb ka ah in ciidanka marka la habeeyo kadib ay qorshooyin dagaalaya ay qaadaan runtii waayadii hore saad og tahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa la howlgali jiray ciidamada AMSOM iyaga keligooda ii sheeg dagaal oo fool ah al-shabaab iyo ayaga iskuma hor imaan jirin laakiin waxaa guulo la gaaray mid aan ku sheegay ka mid ah in la sameeyo dagaal ka dhana al-shabaab aan ugu madax darnay badbaado 1 iyo badbaado 2 oo labadabana ku wajahnaa shabeelooyinka sidaas daraaddeeda qorshaha kala guurka ayaa qayb ka ahaa in la sameeyo dagaalo ka dhan ah al-shabaab in wadooyinka la furo oo wax walba la qabta marka qorshahan dagaalka hadda aan wadno qayb ayuu ka yahay laakiin waxaa ku wajahan yahay labada shabeelle laakiin shabeellada hoose oo maadaama ay tahay meelaha ukumaha runtii ururka ummadda Soomaaliyeed dhibaateeye badanaa resourcegan ay ka helaan marka wuxuu ii sheeg adiga wuxuu kaga duwan yahay haddii waayadii hore runtii intii dagaal la qaado oo meel la tago ay ahayd qorshaha ku dhufu ka dhaqaaq oo kale ahayd maanta dagaalkan wuu kaga duwan yahay kii hore wuxuu kaga duwan yahay waayadii hore dagaalka waxaa qaadi jiray oo keliya AMSOM iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kan laakiin waxaa bah ka ah wasaaradaha quseeya arrimaha amniga ay ka mid tahay wasaaradda amniga iyo wasaaradda cadaaladda oo judiciary oo ay sheeg adiga maxkamadihii wixii inay meeshaas markii la tago ay qayb ka ahaadaan waxaa ka mid ah wasaaradda caafimaadka ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah si dadka caafimaadkooda iyo deegaankii wixii wax looga qabto wasaaradda arrimaha gudaha ka mid ah oo iyadana ka sameynaysa maamul sameyntii iyadoo la shaqeynaysa maamulka markaasi deegaankaas ka taliya sida hadda shabeellada hoose waxay hoos tagtaa maamulka koonfur galbeed waxaa jooga shabeellada hoose gudoomiye qorshaha aan degsanay siduu yahay uu u socdo waxaan filayaa al-shabaab inaysan tiro badnayn laga adkaan karo oo aad aaminsanahay haddaba meelihii ugu halista badneed ugu dhibanayd meelaha anaga hadda aan kala dagaalamayno waay in laga adkaan karo waa aaminsanahay waayahay mudane wasiir waxaa isbeddel lagu sameeyey qaab dhismeedka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo hogaankooda qaabkay u dhisan yihiin NATO model qaab la dhaho baa la sheegay in la qaatay arrintaas maxay ku soo kordhin kartaa ciidanka tayadiisa iyo horumarkiisa iyo dhismaha ciidanka dib u habeynta ku socota wax badan ayay kasoo kordhin kartaa sababtoo ah waqtiyada hadda la joogo dowladahan saaxiibada nahay oo nala shaqeeya ama deeqaha waxbarashada na siiya ama ciidanka noo tababara dhammaantooda systemkaasi haystaan hadday aan ahaan lahayn Mareykanka oo runtii ciidamada danabka oo al-shabaab maanta la dagaalamo noo tababara hadday saaxiibadeena Turkiga oo walaalaheena ay ahaan lahaayeen iyo hadday lahaan lahaayeen EU team European Union training missionka oo hadda nala joogo oo trainingka na siinaya hadday noqon lahaayeen marka si horta trainingka aan qaadanayno ciidamadeen aysan u kala duwanaanin aysan hodhow dambe dagaalkoodii iyo habgalkii iyo shaqadii iyo habraayadii ay mari lahaayeen aysan u wareerin horta in one system la qaato waxay faa'iido u tahay dalkay u tahay oo ii sheeg hal nidaam waxaa ka hadashay waxaan sameynay structure-kii sax structure-ka aan bedelnay waxaan lahaan jirnay anaga old system-kii oo horey aan u haysanay warsa midowga Soviet wuxuu noqdaba oo ahaa dhinacyo badan hadda ururka oo kale 450 ayuu ku koobnaa kan wuxuu ka kooban yahay 550 it means maxay awood siinaysaa halkii urur meel uu joogo haddaad xaqiijiso inuu numberkaas yahay
offensivena wuu sameyn karaa dagaalna wuu qaadi karaa wuuna isdifaaci karaa marka in tirada meesha ay ku joogaysa ay ku badnaato waa mid midda labaad waxa waaye chief of staff ma aanan haysanin taliyaha ayaa waxaa isku ahaa oo ciidanka xoogga dalka taliyaha ciidanka xoogga dalka ahna taliyaha land force ama ciidanka luqta wax loo yaqaan sidaa daraaddeeda hadda waxaa la sameeyey taliyihii waa joogaa waxaa kaloo la sameeyey chief of staff oo hogaanidii iyo maamulka administration levelkii ah waxaa kaloo la sameeyey land force commander oo horey aan